Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada channelka Romani Media. Magaceyguna waa Cabbaas Mustafa. Mid ka mid ah bahweyntan ugu tixaan channelka Romani Media ayaa naga codsaday inaan ka soo hadalno meerayaasha. Waxaana maanta muuqaalkeena ku soo qaadan doonaa dayaxa. Intaanan muuqaalka u guda gelin like saar videogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-ka inuu dad badan gaarsiiyo. dayaxa dhulka wuxuu ka mid yahay in ka badan 200 oo dayax oo baxqorxeedkeena ku jira. Waa dayaxa qoraya dhulka uu leeyahay, waana dayaxa shanaad ee ugu weyn dayaxyada la sahmiyay, taasoo ka dhigaysa dhulka meeraha qora ee halka dayax leh. Markii laga reebo Duusa oo afka qalaad lagu yiraahdo Mercury iyo Waxaraxid oo loo yaqaan Venus oo aanan lahayn dayax, meerayaasha kale oo idil waxay leeyihiin 2 dayax iyo wax ka badan. Saynisyahanadu waxay tijaabiyeen dhowr aragti oo sheegaya qaabku dayaxu ku sameysmay. Aragtida ugu xooggan ayaa ah in muddo laga joogo 4.5 bilyan oo sano oo meerayar ku soo dhacay dhulka, taasoo sababtay burbur. Burburkaas ayaa sababay sameysanka maanta dayaxa. Dayaxu waxa uu dhulka u jiraa masaafo dhan 384,000 kiiloomitir ah. Waa shayga dabiiciga ah ee ugu dhow dhulka inta la og yahay. Masaafada u jira dhulka waxaa gali karo ilaa 30 dhul. Baliciisa ayaa ah 2,159 meel. Dayaxu wuxuu nolosha dhulka u yahay mid muhiim ah oo jiritaankeeda qayb ka ah. Muddo 27 maalmood ah ayay ku qaadataa inuu ku wareego dhidibkiisa. Isla 27 maalmood ayuu ku wareegaa dhulka halkii mar. Waxa uu leeyahay dayaxu 8 weji ama 8 marxaladood oo ay ka mid yihiin dayaxa dhalad, dayaxa bar iyo dayaxa buuxa. Dayaxu wuxuu ina siiyaa iftiin oo si toos uga helo qoraxda. Iftiinkaas qoraxda ka yimaada ayaa ka dhiga dayaxa mid kaligiis ifiya. Badanaa waxaa dhaca dayax madoobaad. Waa marxaladda uu sababay markii dhulka uu kala dhex galo dayaxa iyo qoraxda, taasoo sababaysa in hooska dhulka uu qariyo guud ahaan dayaxa. Mar walba waxaynu aragnaa hal dhinac oo dayaxa ah ama 59% oogada dayaxa. Taas waxaa sababa wareegga uu dayaxu ku wareega dhidibkiisa iyo isla dhulka. Sidoo kale waxaynu aragnaa dayaxa dhalad, dayaxa bari, dayaxa buuxa oo ka mid ah wajiyada ama marxaladaha dayaxa. Waxa uu sabab ah hadba wareegga uu ku wareega dhulka iyo iftiinka qoraxda sida uu u helo. Dayaxu sida dhulka oo kale ayuu leeyahay buuro iyo godad waaweyn. Sidoo kale wuxuu leeyahay biyo aadka ah, balse hawadiisa oxygen ayaanan ka jirin oogadiisa. Markii ugu horeysay Sofiyeetka ayaa ka dejiyay dayax gacmeed oogada dayaxa muddo laga joogo 61 sano wax ku dhow. Sidoo kale 10 sano kadib xilliga aadamihii ugu horeeyay ayaa ku dul socday oogada dayaxa oo ku beegan 1969kii. Sida taariikhda ku xusan 12 cirbixiyeen ayaa ku dul socday dayaxa, dhammaantoodna waa Mareykan. Kii ugu dambeeyay 1972 ayuu ku dul degay.